dawooyinka iyo agabka loo keeno wasaaradda ama wasaaradda caafimaadku leedahay ama xarumaha caafimaadku leeyihiin ay ugu horeeyeen dawooyinka iyo waxyaabaha la midka ah nafaqooyinku ay ka mid yihiin in si bareeraya si dadbanba loogu iibiyo suuqyada in lagu gado goobaha caafimaadka in dukaamada lagu iibiyo alaabtii loogu talagalay xarumaha caafimaadka su-aashayda afraad waxa weeye mudane wasiir waxaa jirtay degmada Qardho xarun koroonuhu uu lahaa 2021kii la xiray shaqaalihiina ay iska casileen waliba iyagoo cabashooyin badan tirsanaya iyo handadaado dadkeena waxay marti u yihiin ama marti ku yihiin dhanka caafimaadka ah Muqdisho iyo Hargeysa isbitaaladana weynaa isbitaal shaqeeya ma jiro laakiin annagana waxaa yaab kale ila sii noqotay markaa tiri 4200 buu sanaag wuxuu ku leeyahay 290 shaqaalaha cadaalad darrada halkaa ka jirta yaa mas'uuliyadda qaada yaa ka mas'uul ah wasiir su'aasha labaad waxa weeye cisbitaalka Boosaaso waxa laga qaadaa $20 sidaan ku ogaa islaamuhu markay umulaan habeen haday joogto habeenka labaad bixin weydo waa laga banaanka looga tuuraa hay'ad bana lacagta bixisa kiiska dadku ku sumoobeen magaalada dan kiiskaas xogtiisa ma hayo ima soo gaarin naga shaqadeedu waxa weeye inaanu ku dadaalo inaanu u qareeno inaanu keenno dhaqaalihii iyo mashruucii ay ku kici lahaayeen xarumahaasi haddii la hayno waxaa ku xiga $40 oo laga qaado dadka dhoofaya adduunkiina uu xildhibaanku yiri waa la iska daayay wadamada qaarna looma baahna laakiin waxa naga shuruud nagu xidhan ma aha haddaad helayso oo diyaaradda kugu qaadayso bilaa waraaq annaga waxa ku weydiin mayno waad raaci kartaa khasabna naguma aha ilaanu waraaq ku jirno in lacag laga qaadana khasab laguma leh laakiin waa shuruud diyaaraddu leedahay iyadaana mas'uulka sida qorsheenu ahaa maanta golaha waxa uu horiyay wasaaradda caafimaadka dawladda Puntland oo hogaaminayo wasiirka wasaaradda caafimaadka dawladda Puntland wasiir Jaamac waxa weeliya wasiir dawlaha wasaaradda iyo saraakiil kale oo ka tirsan wasaaradda caafimaadka dawladda Puntland mudane wasiir adiga mas'uuliyiinta kale ee ka tirsan wasaaradda caafimaadka dawladda Puntland soo dhawaada kalfadhiga kontonaad fadhigiisii 22aad oo maanta oo taariikhdu tahay 16kii bisha 7aad 2022kii golaha aad hor fadhidaan mudane wasiir oo kaaga mahadnaqaynaa adiga iyo mudanayaasha kale ee wasaaradda ka tirsanba inaad muddadii u idin qabtay golaha wakiilada dawladda Puntland aad ku hor timaadaan mudane wasiir waxaa socda la xisaabtankii xukuumadda waxaan u maraynaa qodobka dastuuriga ah ee 64aad ee dastuurka dawladda Puntland oo ka waramaya awoodaha golaha wakiilada farqadiisa 17aad oo u dhigan sida tan golaha wakiilada dawladda Puntland wuxuu u yeeri karaa mas'uuliyiinta sarsare ee dawladda si wax looga weydiiyo hawlaha loo igmaday haddii mas'uul loo yeeray cudurdaar la'aan ka maqnaado inuu hortago golaha ama gudahoosadyadiisa goluhu wuxuu horgelinayaa madaxweynaha waxaana loo qaadayaa codka kalsoonida sidoo kale waxa aan u mari doonaa sida uu nafarayo xeerasaadka golaha wakiilada dawladda Puntland qodobka 62.8 iyo sidoo kale warbixintii ay noo soo golaha la wadaageen guddiga arrimaha bulshada dhaqanka warfaafinta iyo isgaarsiinta markii kalfadhigu furmay sidoo kale waxa u maraynaa dastuurka dawladda Puntland qodobka 33aad oo ka waramaya caafimaadka sidoo kale waxa aan maraynaa oo xiganaynaa xeerka guddiga xirfadlayaasha caafimaadka Puntland iyo sidoo kale xeerarka uu dalku leeyahay la xisaabtanka wuxuu u badan doonaa su'aalo ka imanaya shirgudoonka iyo mudanayaasha golaha wakiilada kadib wixii ka soo baxa la xisaabtanka goluhu uu kula soo wadaagi doonaa mudane wasiir su'aasheeda ugu horeysa waxa weeye waxaynu ognahay dawooyinka iyo agabka loo keeno wasaaradda ama wasaaradda caafimaadku leedahay ama xarumaha caafimaadku leeyihiin ay ugu horeeyeen dawooyinka iyo waxyaabaha la midka ah nafaqooyinku ay ka mid yihiin
in si bareera iyo si dadbanba loogu iibiyo suuqyada, in lagu gado goobaha caafimaadka, in dukaamada lagu iibiyo alaabtii loogu talagalay xarumaha caafimaadka ama heer wasaaradeed ha noqdo ama mid gobol ha noqdo ama mid degmo iyo waxa weeye shaqaale hoosaad ha noqdee. Arrintaasi maxay ku dhacday? maxaase aad ka qabanaysaan haddii arrintaasi ay caddaato oo ay caddahay? caddayntii ugu horrayso hadda aynu taaban karno waxaa ka mid ahaa daabulkii ugu dambeeyey ee ka dhacay wasaaradda caafimaadka oo idinku aad markhaantiga ahaydeen, iyo dawooyinkii loogu talagalay xarumaha caafimaadka oo lagu iibinayo goobaha ganacsiga. waa su-aashiida koowaad. su-aasha labaad waxa weeye wasiir, waxaa jira abaaro ba'an oo dhulka hadda saameeyey. hadday sii socdaanna waxaa laga yaabaa inay xaaladdu ka sii darto. qorshaha nooguma aadan darin xaaladda abaaraha wax idinka qorshaysan, mana aanan arag wax hadda qorshaha aad wadaan. maxaa idinka qorshaysan arrinta abaaraha iyo nafaqadarrada, gaar ahaan carruurta iyo haweenka hadda si baan u soo wajahaya? su-aasheeda saddexaad waxa weeye mudane wasiir, dhowaan waxaa ka dhacday magaalada la yidhaahdo dan inay ku sumoobeen qoys boorashka hay-aduhu keenaan, 2 qof ay ku dhinteen, dadkii kalena dhakhtar la geeyey. arrintaa maxaad kala socotaan, maadaama ay cuntada ay ku sumoobeen uu yahay waxyaabaha caawimada lagu bixiyo caafimaadkana loo keeno oo nafaqada? su-aashayda afraad waxa weeye mudane wasiir, waxaa jirtay degmada Qardho xarun koroonuhu uu lahaa 2021kii la xiray, shaqaalihiina ay iska casileen, weliba iyagoo cabashooyin badan tirsanaya iyo handadaado. arrintaasi xaggee ku dambaysay, maxaase laga qabtay? su-aasheeda shanaad waxa weeye mudane wasiir, degmada Boocame waxaa ka jiray mashruuc ay hay-adu fangaraynaysay oo shaqaale iyo ahaa daaweyn. kolley si daah furan mashruuca looma furin. mashaariicda noocaasina waxay u baahan yihiin in si daah furan oo ku habboon, si ay dadku u arkaan in wax loo qabtay, inay helaan. mudane wasiir, su-aashiisa ugu dambaysan kaga tegayo waxa weeye, warbixintaada kuma aanay jirin gobolka Sool waxqabad hadda laga qabtay oo muuqanaya. miyaanay idiin qorshaysnayn oo idinku jirin gobollada aad idinku mas-uulka ka tihiin, kamana aanay muuqan activity muuqanaya oo hadda aad ku tagtaan gobolka inta aad tegi kartaan? wasiir, su-aasha koowaad waxay leedahay gobollada puntland lagu asaasay waa 5 gobol oo dawladda siyaad barre aqoonsanayd. gobolladii ka dambeeyey puntland ay magacowday waa 9 gobol. waxaa halkan ku soo qorteen gobollo ku lamaan oo ku hoos jira iyo kuwo sidooda u taagan oo isku qaybsan kuwii dambe iyo kuwii horeba shaqaalahooda. marka waxaan is leeyahay waxaad ka xishooteen gobollo aan shaqaale lahayn inaad gaar xooda u qortaan, ay idinku adkaatay. marka kuwo kale aad ku cadafteen oo hoosta u geliseen, inkastoo dadku shaqaada u siman yahay. taas marka waxaa la rabaa inaad bayaamisaan. waxaad sheegtay, waxaad tidhi gobollada kale ku jiraan oo sida UN-ka aqoonsan yahay. marka UN-ku wuxuu aqoonsan yahay waa isla naqaan, kuwo uusan aqoonsanayn baa ku jira meesha oo dad badan ugu qoran yahay, shaqaalo tiro badan oo gaar aad u soo qorteen. su-aasha labaad waxa weeye cisbitaalka Boosaaso qaybta umulisooyinka iyo dhallaanka waxaa laga qaadaa $20 sidaan ku ogaa. qofku hadduu bixin waayana waa laga saaraa. islaamuhu markay umulaan habeen hadday joogto habeenka labaad bixin weydo waa bannaanka looga tuuraa. hay-ad baana lacagta bixisa, lacagta laga qaadana waa $20. marka arrintaasna waxaa la rabaa bal si faahfaahsan inaad uga jawaabtaan. waxaa kalifay iyadoo weliba tahay meel kulul, dad badanna joogaan oo tabar daran iyo qaxootiyaal. arrintaana waxaan rabaa si waadixa inaad uga warrantaan. dadkeenna waxay marti ku yihiin dhanka caafimaadka ah muqdisho iyo hargeysa. cisbitaalladeena weynaa cisbitaal shaqeeya ma jiro. dhammaan lagama helo adeeg caafimaad oo hufan lagama helo. weliba waxaa loo aanayaa dhibtaas xagga wasaaradda inay tahay oo wasaaraddu ay hortaagan tahay inay isbitaallada weyn oo babliga ay si fiican u shaqeeyaan ayagoo interestigooda eegaya. su-aasheeda marka maxay tahay, maxaa diiday isbitaallada weyn oo babliga ah
in si fiican ay u howlgalaan oo looga shaqaysiiyo si looga maarmo aaditaanka bannaanka la aadayo. waa su-aasha koowaad. su-aasha labaad waxay tahay gobolka Sanaag waxaa ka jira xarumaha dadka ay si qaasa u dhisteen oo community-ga ay dhisteen ama ha noqdaan MCH ama isbitaallo yaryar ha noqdaan sida magaalada Ceelbuhu oo kale, Xingalool iyo Wardheer oo kale. laakiin wasaaradda wax gacan aysan ka geysan. dhismihii waa dhisan yahay, qalabkii caafimaadka lagu shaqayn lahaa ma yaal. maxaa uga qorshaysan wasaaradda inay kaga qayb qaadato goobaha dadka ay dhisteen ee magaalooyinka aan sheegay? 3 waxaa kaloo jiray 5 MCH oo isla gobolka Sanaag qorshihiisu uu ahaa sanadkii aan soo dhaafnay inay wasaaradda gacanta ku qabato. welina ma hayno waxay gacanta ku qabatay. maxaa qorshaha iska bedelay sanadkii hore ahaa inuu fulo? waxaa jira wasiir in la qaado lacag $40 oo COVID-19 ah certificate-ka. waxaan ugu maqaalaa adduunka hadda in laga joojiyey oo xataa dadka halkan laga siiya aan la weydin oo meelaha la iskaga tuuro. welina dadkii laga qaado sidaan dareensanahay. arrintaas maxaad warbixin naga siin karaysaan? wasiir, warbixintiina markaan ku noqdo, warbixintan aadna siiseen shaqaalaha wasaaradda, wasiirku wuxuu aad oola yaabay shaqaalaha wasaaradda 4028 oo ay beeroolka kaga jiraan 635. laakiin annagana waxaa yaab kale ila sii noqotay markaad tiri 4200 buu Sanaag wuxuu ku leeyahay 290 shaqaalaha. cadaalad darrada halkaa ka jirta yaa mas-uuliyaddeeda qaada, yaa ka mas-uul ah wasiir? inaad tidhahda 4000 oo shaqaale ah oo gobollada Puntland ah baa Sanaag 200 ay ka leedahay. cadaalad darrada intaa la eg yaa mas-uuliyaddeeda qaada, yaa ka mas-uul ah? su-aashayda koowaad waxay tahay qodobka 33 ee dastuurka Puntland wuxuu oggolaanayaa in goobo caafimaad oo si gaara loo leeyahay la furi karo. runtii waa la furaa, goobaha caafimaadkuna aad bay u badan yihiin, magaalooyin kasta na waa ka furan yihiin. mudane wasiir, xarumaha caafimaad dadka wata, dadka ay qaataan, qalabka ay isticmaalaan, sidee baad u hubisaan oo aadna golaha ku qancin kartaa iyo dadka ku dhegaysan doono dadweynahaaba? su-aasha labaad tayadooda. su-aasha labaad, waxaan ognahay goobo badan oo dawladdu lahayd ay ka mid yihiin gobollada iyo degmooyinka. caafimaadka waxaa xukuma dad aan aqoon caafimaad lahayn, iyagoo kuwii caafimaadka soo bartayna ay bannaan joog yihiin. maxaad arrinkaa wax uga qaban weydeen maadaama aad caafimaadka dalka iyo dadka dibadda aad maamushaan? su-aasha saddexaad waxay tahay, halka waxaan ku hayaa shaxda waxaa ku yaalla gobollo. waxaad tidhi gobollo aan UN-ku aqoonsanayn baa jira. wasiirka caafimaadkaa tahay, UN-kana uma shaqaysid, dastuurkaasuna UN uma shaqeeyo. gobollada Puntlandna waa la yaqaan tiradooda. haddii xataa aan UN-ku aqoonsanayn, gobolka Highlandna kuma jiro, caynna waa ku jirtaa. maxay arrintaasi ku dhacday in UN-ka lagu raalli geliyo oo innagoo dawlada UN-ku inoo hoos iman waayo aynu sidaa ugu shaqayn weyne? taasuna waa su-aashayda kale. su-aasha kale waxa weeye, dhahar ama gobolka Highland waxay leedahay hal cusbitaal oo referaal ah. gobolkuna waa gobol ballaaran. gobolkaa dadka ku xanuunsada oxygen laan bay u dhintaan. meelo badan baad ku rakibteen warshado oxygen. maxaad gobolka intaa ballaar leeg cusbitaalkiisa aad ugu samayn weydeen warshad oxygeenta siisa? dhinaca kale cusbitaalka naftiisu aad buu u dayacan yahay, wax badan baana ka maqan. war ma ka haysan arrinkaa? isla gobolkaas
waxaa ka jira aqoonsilaanta wasaaradda ee wasaaraddu samaysay qof gobolka sanaa ka tirsan inuu isku hayo labada gobol hal shaqo ka mid ah qof gobolka sanaa haylaan ka tirsan inuu laba isku hayo miyaan gobol walba xorriyaddiisa iyo shaqaalihiisa si gaara loo dhisi karin waxaa jira wakhtigan amsiyaajyada gobolku leeyahay oo la ildaran daawo la'aan shaqaalo aan mushahar qaadan dadkoo wada xanuunsan war ma ka haysan gobolkaas iyo caafimaadkiisa iyo xaaladdiisu siday tahay xildhibaan cabdiraxmaan wuxuu ka hadlay oo su-aashiisu ay ku saabsanayd alaabta iyo daawooyinka wasaaradda caafimaadka oo isagu yidhi waxay yaallaan suuqa iyagoo iiba arrintaas wuxuu raaciyey arrin kale oo uu carrabaabay oo ah kiis dhowaan ka dhacay wasaaradda caafimaadka oo agab caafimaad oo nafaqada loogu talagalay ku saabsanaa labaan u kala qaadi lahaa arrinta guud ee uu ka hadlay xildhibaanku ee uu yidhi daawooyinka iyo agabkii daawada ee wasaaraddu haysay waxaa lagu iibiyaa suuqa weliba haddii aana khaldanayn uu raaciyey caddaymaannu haynaa waxaanu jeclaan lahayn caddaymaha inuu nala soo wadaago annagu ma hayno daawo wasaaradda caafimaadku leedahay oo suuqa lagu iibiyo waxay ka mid tahay daawooyinka waxyaabaha runtii aanu aadka u ilaalinno waxay leedahay process dheer oo xataa kuwa aanu bixinnay ee dhaca waxaa loo baahanyaa in la soo celiyo oo la gubo oo la caddeeyo inaanay meel gelin xildhibaanku marka waxaan ka codsan lahayn isagu hadduu caddayn hayo inuu keeno annagu wasaarad ahaan ma aaminsanin caddaynna uma hayno daawooyin wasaaradda caafimaadku leedahay si guud in suuqa loogu iibiyo oo laga helo kiiska uu carrabaabay haddaan isaga u gudbo waa kiis aan hore uga hadlay alaab nafaqa ah oo wasaaradda meel ka mida taallay in shaqaale ka mida shaqaalihii waardiyaha ka ahaa meesha ay si sharciga baalmarsan ama tuugaysan ay meesha ugala baxeen haddii ay ugala baxeenna wasaaraddu waxay leedahay nidaam la raaco waxay leedahay kamaradaha la yska arko ama CCTV ayaa meel kasta ku rakiban wasaaraddu markay ogaatay arrintaasi u caddaatay waxay martay dariiqa saxda ah dadkii arrinkaa ku lug lahaana shaqadii waa laga eriyey iyadoo loo marayo dariiqa saxda ah ciidamada amniga iyo cadaaladdana waa lagu wareejiyey kiiska dadku ku sumoobeen magaalada dan kiiskaas xogtiisa ma hayo ima soo gaadhin dabcan hadduu jirana waxaan filayaa oo aan rajaynayaa in laga hawlgalay oo sida ahayd looga hawlgalay lakiin kiis anigu aan xogtiisa hadda hayo ma aha magaalada dan qardho shaqaalihii karantiinka mudane guddoomiye mudane yaasaad la socotaan covid-19ku markuu bilowday waxaanu ku bilownay inaanu samayno xarumo lagu karantiino dadka covid-19ku ku dhaco oo ka baxsan cusbitaalka xarumahaas muddo ayay inoo furnaayeen shaqo fiican bay qabteen laakiin marka timeku sii dheeraaday ee xanuunka dadku la qabsaday adduunkoo dhan waa laga tegay xarumaha karantiinka waxaa loo guuray in cusbitaallada qayb ka mid ah waad loogu talagalo dadka la seexiyo marka taasay ku timi in shaqaalihii ay complain ka keenaan oo ay eedayn aan jirin iyo waxyaalo kale ay sheegaan laakiin asal problemka waxa weeye shaqaaluhu waxay ka soo horjeesteen in xaruntii karantiinka inta laga raro meesha cusbitaalka waad ka mid ah loo raro aakhirkiina waa loo raray wayna shaqaysa mashruuca boocame dabcan wuu la socdaa xildhibaanku waa mashruuc aanu isleenahay wuu anfacayaa magaalada boocame hase ahaatee mashruuc waliba wuxuu maraa process wuxuu maraa xog la ururiyo wuxuu maraa shaqaalaha imtixaan laga qaado wuxuu maraa waqti buu qaataa marka waqtigaas ayaa lagu jiraa oo shaqaale fiican oo 20 ku dhow haddaanay ahaynba ay ka shaqayn doonaan haddii ilaahay marka boocameba waxay ka mid tahay dabcan sool meelaha kalena dabcan waxay ku xiran tahay resourceska iyo waxa markaa loo hayo laakiin
waxaan ku caddaynayaa in shaqooyin ka socdaan iyaga laftooda mashruucii ambalaasyada waad la socotaa magaalada Taleex inaanu geynay inaanu ay ka mid tahay meelaha laamiga ka baxsan ee aanu ambalaasyada ugu talagalay aanu geynay taasi waxay muujinaysaa inaan sool nooga duwanayn gobollada kale ee shaqooyinka inta awoodayada ah inta aanu ka wadno iyana aan ka wadnaa dilahayn xildhibaankii ku xigay magacyada haddaan khalkhal raalli ah laga ahaado xildhibaan Awbaraab waxaan u malaynayaa wuxuu ka hadlay gobollada gaarka gobollada aan la sheegayn ama la carabaabayn ama gobollo lagu lamaaninayo waan ka afeeftay runtii arrintaas gobolka Gardafuul ayuu ula jeedaa baan u malaynayaa mashruuca mashaariicda marka annaga naloo keenayo waxaana loogu keenaa sidii aan idinku sheegayba gobollada lagu aasaasay Puntland 1991 iyo wixii ka horreeyay ayaa mashruucda naloo keenaa gobolka Gardafuul laftiisa inta anigu aan xafiiska joogay runtii shaqo badan oo gobol ahaan inaanu u dhisno ah ayaanu ka qabannay marka anigu aan imi team maamul oo gobol oo Gardafuul ma jirin hadda waxaa jira Isuduwe waxaa jira team gooni ogaan oo Gardafuul gaar uga shaqeeya oo aanu si gaar ah ula xisaabtanno marka ma jiro gobol haddii waraaqda laga waayo macnaheedu ay tahay inaan shaqo ka socon oo aanu gobol kale wixiisii sii marinayno ama aanu si kale ula macaamilayno ma jiro xildhibaanku raaciyay arrin la xiriirta cisbitaalka Boosaaso oo uu yidhi hay'ad baa lacag siisa haddana dadka ama umulisooyinka ku dhala cisbitaalka lacag baa laga qaadaa waxaa jira hay'ado naga caawiya qaybta maaha cisbitaalka oo dhan qaybta hooyadu ku dhasho ama hooyada iyo dhallaanka cisbitaalada qaarkood waxaa ka mid ah cisbitaalka Garoowe waxaa ka mid ah cisbitaalka Boosaaso cisbitaalka oo dhan ma caawiyaan laakiin qaybtaas ay naga caawiyaan maadaama ay qaybta kaliya naga caawiyaan isla markaana aan caawimadooda ama dhaqaalaha ay keenaan aanu ahayn dhaqaale rasmi ah uu yahay dhaqaale marna la waayo marna la helo waxaanu ku heshiinay annaga oo saddex geesooda waa wasaaradda waa cisbitaalka iyo hay'adda laftooda waxaanu ku heshiinay si taa meesha looga saaro waanu adeega meesha aanu ka bixin in fee kooban laga qaado hooyada la qalayo inta kalena dabcan waxaad la socotaan hooyada marka operation lagu samaynayo dhaqaalaha ku baxa waa $200 maaha $20 maaha $50 waa $200 dhowrka $100 in ay hay'adda iyo wasaaraddu ay kabaan hooyada iyo qofka la qalayaana ay ku soo hagaagto fee kooban oo laga qaado si aan adeegaasi u kala go'in marka waa heshiis wasaaradda iyo cisbitaalka iyo dadka naga caawiya isla gaareen waxaan isleenahay waa heshiiska saxda ah si aan adeegaasi uga kala go'in cisbitaalka waxaan noo qorshaysan inaanu shir August dhici doona oo qurbo joogta ay ku qaban doonto halkan Garoowe inaanu ku soo bandhigno muhiimadda ay leedahay in cisbitaallo dadka diasporada ah iyo dadka investmentiga gudaha joogaaba ay ku maalgeliyaan Puntland ay ku maalgeliyaan isla markaana looga faa'iideysto halkan waxa loo aadayo dibadda waxa weeye inta badan maaha waa specialist ama waa kansarka ama waa waxyaalaha khaaska ah ee specialistayaasha weeye waxyaalaha aynu u baahannahay inaynu ku soo kordhino halkan waxaan kaloo oo rabaa inaan idinla wadaago inay already socoto oo ay socdaan kambaniyo waaweyn oo dhameeyay waxa loo yaqaan dabcan process baa la maraa marka business aas oo kale la samaynayo businesska anagu waa dhiiri gelin karnaa laakiin kuma khasbi karno inay waddanka yimaadaan laakiin anagu waxaan samayn karnaa inaan dhiiri gelinno inaan dawlad ahaan u sahalno inay waddanka yimaadaan inaan red tape-ka ka kala yarayno inaan hadday dhul u baahdaan dhul la siiyo iyo wixii la mida laakiin khasab qofka businessku de waa business wuxuu rabaa inuu lacag faa'iido isla markaana uu dadkii wax u taro marka kuma khasbi kartid inuu halkan yimaado laakiin waxaan samayn karnaa insha allah inaanu ku dhiiri gelinno alreadyna waxaanu ognahay kambaniya waaweyn oo ay amal baan ka mid tahay inay sameeyaan waxda feasibility study oo ay u sameeyaan sidii ay halkan isbitaal weyn uga samayn lahaayeen taasoo ay ku guulaysteen isla markaana ay hadda ku jiraan technical reportkii sidii arrintaasi suuragal u noqon lahayd marka waxyaalaha noocaas oo kale ah waa waxyaalaha aynu u baahannahay kulligeen dawlad ahaan xildhibaano iyo xukuumadba in lagu dadaalo in dadka maalka leh ee Puntland u dhashay in lagu dhiiri geliyo inay waddankan yimaadaan oo ka furtaan cusbitaallo waaweyn oo aynu uga maaranno mawduuca uu ka hadlay xildhibaan cali cabdilaahi gobolka Sanaag waxaa ka jira xarumo la dhistay oo aan weli shaqayn dabcan waa run gobol kastana waa laga helayaa xarumo dadku intay iskood u dhisteen
aan weli shaqayn laakiin waxaa xusud mudan boqolaal xarumood oo hadda shaqeeya maanta waxay ku bilaabmeen in dadku iskoodu dhistaan muddaa wax loo la'aa aakhirka waa loo helay haddana waa xarun shaqaysa oo weyn kuwa saas oo kalena dabcan waxa markaa la hayay ku xidhanta waxaa laga yaabaa sanadka dambe xarumaha uu ka sheekaynayo inagoo shaqaynaya loo yimaado waa ku mahadsan yihiin dadku inay dhisteen waa ku mahadsan yihiin dadweynuhu inay ka shaqeeyeen laakiin wax waliba waxay ku soo ururaysaa dhaqaalaha loo hayo ee xarumaha lagu kicinayo xilligeeda iyo waqtigeeda ayayna kici doontaa haddii laadma annaga shaqadeeda waxa weeye inaanu ku dadaallo inaanu u qareenno inaanu keenno dhaqaalihii iyo mashruucii ay ku kici lahaayeen xarumahaasi haddii lahaydno waad la wada socotaan xildhibaano mudane guddoomiye mudanayaal shaqada iyadoo dhan waxay ku xidhan tahay deeq bixiyayaal iyo dad kale caawimadooda marka mashaariicaas waxaanu filaynaa dhowaan insha allah iyana inay noo hagaagaan oo xarumaha uu xildhibaanku sheegayo 5 xarumoodba ay insha allah shaqayn doonaan waxaa ku xiga $40 oo laga qaado dadka dhoofaya adduunkiina uu xildhibaanku yidhi waa la iska daayay waddamada qaarna looma baahna annagu dadka dhoofaya $40 kuma soo rogin khasabna annaga naguma aha laakiin waa shuruudaha diyaaradda shirkadda diyaaradaha oo ay ka mid tahay shirkadda diyaaradaha Ethiopian Airways iyada ayay shuruudahooda tahay oo aanay qaadayn qofkii haddii aanu lahayn COVID-19 ka waa run waxay ku xidhan tahay dalka aad u socoto hadduu kaaga baahan yahay haddii kale waxay kaloo ku xidhan tahay shirkadda diyaaradaha ee marka aad raacaysaa ma kaaga baahan tahay mise kaagama baahna laakiin waxa annaga shuruud nagu xidhan ma aha haddaad helayso oo diyaaradda kugu qaadayso bilaa waraaq annaga waxba ku weydiin mayno waad raaci kartaa khasabna naguma aha ilaanu waraaq ku jirno in lacag laga qaadana khasab laguma leh laakiin waa shuruud diyaaraddu leedahay iyadaana mas-uulkaa qof waa shakhsi qofkii dhoofaya ee shuruudda dhoofitaankiisa ay ku jirto inuu waraaq qaato qofka unbaa annaga noo imanaya oo aan u jirayna wax annaga shuruud guuda annaga noo taalla ma aha runtii qodobkaas intaas ayaan kuu gudbayaa waa arki kartaa gobolka sanaag ma aha gobolka ugu shaqaalaha yar sool baa 119 wax walibana waxay ku xiran yihiin dabcan markaan leenahay gobolka sanaag waxaa xusud mudan gobolka sanaag oo dhan ee originalka ah kama hadlayno ceerigaabo xarumo caafimaad ku leeyahay oo annagu aanu ka shaqayno oo shaqaalaheedu annaga hadda aan bayroolkaya ku jiraan kuma jiraan marka waxaan ka hadlaynaa waxa weeye xarumaha noo shaqeeya tiradooda iyo shaqaalaha nooga shaqeeya ayay tiro walba ku xidhanta marka gobolka sanaag iyo gobolka sool waxaa dhici karta inaanay la shaqaala noqon ama la tiro noqon gobolka mudug oo laga yaabo ama gobolka bari oo laga yaabo xarumaha nooga furan inay ka badan yihiin xarumaha nooga furan sool iyo sanaag marka maaha macnaheedu in xaqdarro lagu sameeyey laakiin annagu waxaanu ku xisaabtamaynaa keliya mashruuca aanu hayno iyo mashruuca aanu gobolka u hayno shaqaalihiisu waa xisaabsan yahay xariwiisuna waa xisaabsan yihiin taasaa keenaysa marka in shaqaalihii ay loo kala bataadilo laakiin ma aha wax la xidhiidha cadaalad darro iyo in gobollada qaar shaqaalaha lagu yaraynayo xildhibaan cawaale wuxuu sheegay xarumaha caafimaadka oo brivatka ah see loo hubiyaa dadka ka shaqeeya shaqaalaha ka shaqeeya iyo daawooyin ka shaqeeyaba sidii guddoomiyuhu uu carrabaabay horudhicii meetingkan intii anugu aan xafiiska joogay waxaanu hirgelinay oo aanu ka shaqaysiinay ilaa xad guddiga xirfadlayaasha caafimaadka oo shaqadooda keliya ay tahay inay kontaroolaan ama xarun dawladeed ha ahaato ama xarun caafimaad ha ahaato oo private loo leeyahay inay kontaroolaan shaqaalaha meesha ka shaqeeya inuu qualificationkii saxda ahaa ama xirfaddii saxda ahaa uu leeyahay waa kow in daawooyinka meeshaa yaallaa aanay noqon daawooyin dhacay oo aan meeshaa daawooyin dhacay lagu iibin caafimaadka dalka waxaa xukuumadada aan aqoon u lahayn gobollada balde annaga dabcan nidaam baanu ku rikuruud garaynaa dadka waxaanu ku shaqaalaysiinaa nidaam shahaado leh oo interview leh marka ma aaminsanin dadka inaan loo dhiibanay dad aan aqoon u lahayn shaqada caafimaadka ma aaminsanin dabcan way jirtaa waddanka shaqaale badan oo caafimaad baa ka soo baxa jaamacado badan baa ku yaalla dadka jaamacadaha waxaa ka soo baxa dhalinyaro badan oo Soomaaliyeed oo reer Puntland ah oo u baahan in shaqo la siiyo wasaaraddu shaqo ma wada siin kartaa shaqaalaha dadka noocaas ardayda noocaas waa maya
ma la helayaa dhalinyaro fara badan oo shahaadooyin haysto oo wareegaya aan weli shaqo haysan waa haa taas waa barashar wasaaradda saaran waa barashar dalka oo dhan saaran laakiin ma aaminsana annagu inaanu dad aan aqoon u lahayn aanu u dhiibanno xarumaha caafimaadka waxaanu leenahay process HR oo la maro oo lagu imtixaamo gobolka Highland iyo sida aan ugu jirin shaxda waa wuxuu la mid yahay gobolada aan ka hadlay waxaa laga yaabaa shax inuu ka maqan yahay laakiin shaxda kale mudane xildhibaan waad ku arki kartaa gobolka Highland shaxdaas labaad haddaad aragto waad ku arki kartaa marka